golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bari dooran doona hoggaan cusub. Walaac badan ayaa ka jira qabsoomidda shaqada bari kadib markii ay magaalada Muqdisho wada yimaadeen xubnihii iska soo horjeeday ee lagu soo doortay degmooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharey, kuwaas oo goobo kala duwan loogu sameeyay shahaado siin iyo dhaarin. Sidaan xogta ku helnay, labada dhinac ee min 16 ah waxay isku diyaarinayaan inay bari ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka. Maamulka ku-meel gaarka ah ee golaha shacabku wuxuu taageersan yahay 16 Ceelwaaq, kuwaas oo dhaartoodii xaadiray. Kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la sheegayaa inay qorsheynayaan inuu jawigu noqdo kala tag ama in labada kooxba laga reebo doorashada guddoonka golaha shacabka ee dhacaysa maalinta bari. Sida ay diidmadooda ama qorshahooda ku fuli karaan macda. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa isagoo dalka ka maqan waxa uu caawa soo saaray qoraal uu ku farayo ciidanka AMISOM ee hadda loo bixiyay ADMIS inay degdeg ula wareegaan tendhada Afisoni ee bari lagu qaban doono doorashada golaha shacabka. Arrinta liiska xildhibaanada bari tagaya tendhada Afisoni ayuu Ra'iisul Wasaare Rooble qoraalkiisa ahmiyad ku siiyay, isagoo sheegay in liiska xildhibaanada uu soo diyaarin doono guddoonka ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka, kadibna loo gudbin doono ciidanka AMISOM, kuwaasoo ugu dambeyn iyaguna ku wareejin doona xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Micnaha xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu dambeyn liiska dhaqangelin doona ayuu noqonayaa hadalka Rooble. Ammaanka waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaruhu in AMISOM ay kala shaqayn doonaan wasaaradaha amniga, midda gaashaandhigga iyo xafiiskiisa. Marka kulanka bari la eego, Ra'iisul Wasaare Rooble waxa uu qaatay awood dheeri ah. Sida ama u dhaqangeli doontaa ayaa ka mid ah isweydiimaha shacabka. Madaxweyne Farmaajo ayaa isna caawa soo saaray qoraal uu uga jawaabay bayaanka uu Ra'iisul Wasaare Rooble amniga goobta doorashada ugu wareejiyay ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya jooga. Farmaajo waxa uu sheegay in howlgalka ADMIS uu kaalmeynayo guddiga amniga doorashooyinka ee uu madaxda u yahay taliyaha booliiska Soomaaliya. Farmaajo wuxuu AMISOM oo hadda loo bixiyay ADMIS u sheegay inaanay qaadan karin go'aan hal xafiis ka soo baxay, kaasoo uu sheegay inuusan awood u lahayn amar bixinta noocaas ah. Wuxuu sidoo kale madaxweyne Farmaajo ka digay in xubnaha Ceelwaaq iyo Garbaharey lagu soo doortay ka qayb galaan kulanka bari ee doorashada guddoonka golaha shacabka. Wuxuu ku celiyay in 16 kursi ay qasab tahay inay go'aan ka gaaraan golaha wadatashiga qaran iyagoo raacaya heshiiskii 17 Sebteembar, ama inuu baarlamaanka 11aad soo saaro xeer uu wax kaga bedelayo heshiiskii 17 Sebteembar ee uu saxiixay baarlamaankii 10aad. Dhanka kale, taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa dhinac u riixay go'aankii uu Ra'iisul Wasaare Rooble amniga goobta doorashada kula wareejiyay ciidanka ADMIS. Xijaar waxa uu sheegay inaanay jirin cid kale oo ay u ogol yihiin inay hawsha ku wareejiyaan, isagoo sheegay inay isla caawa bilaabayaan sugidda amniga goobta doorashada. Farmaajo muhiim ayay u tahay guusha 16 kursi. Waxaa lagu eedeeyay dhowr jeer oo kala duwan inuu raadiyey dariiq uu ku fashiliyo hanaanka doorashada, iyo weliba adeegsi awoodeed oo ay ugu dambaysay midii ka dhacda Airport Hotel, markaasoo la xaqiijiyey in la weeraray goob lagu dhaarinayay 16 xubnood ee lagu soo doortay Ceelwaaq. Haddii aanay caawa kooxda madaxweyne Farmaajo qaadin tilaabo ciidan, bari rajadu waa fiican tahay ayaan ka soo xiganna mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, kaasoo aad uga walaacsan sida uu xaalku noqon doono maalinta bari ah iyo sida loo maarayn doono xubnaha Ceelwaaq iyo kuwa Garbaharey. Sidoo kale, fawda ka dhacda gudaha golaha shacabka ayaa ka mid ah cabsida laga qabo kulanka bari. Haddii aan eegno dhanka doorashada guddoonka, musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa dhammaan sheeganaya fursado sare. Qaar ayaa la fahamsan yahay inay aad isugu dhow yihiin xagga ololaha ama inay isku jiha wax ka sugayaan. Kooxda madaxweyne Farmaajo shaqo fiican ayaa uga socota mashruuca Xasan Cabdinuur. Mucaaradka waxaa la hadal hayaa inay xooggooda isugu geynayaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. xildhibaanada golaha shacabka muddada dheer soo joogay waxay ka fakarayaan sida qaarkood laga soo xigtay
inay cod ka siiyaan Shariif Maxamed Cabdalla. Xaalka Cabdulaahi Balaag kor ayuu u soo kacay dhowrkii cisho ee la soo dhaafay, halka Aadan Saransoor uu kudlad isku xiran meel la fadhiyo. inkastoo ay aad isugu dhow yihiin musharaxiintu miisaan ahaan, haddana dhinaca kale waxaa macquul ah in ilaa iyo caawa xubnaha qaar isku dhammaadaan ama ay heshiisya dhacaan si kuwa fursadaha fiican haysta loo sii xoojiyo. maxay kula tahay adiga?